إنجنير محمد حاشي علمي وزيرك هوري وزارة مالية حكومة مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو أيا waxa uu shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu baaqayn inay mar kala dooran maayirka caasimadda Hargeysa iyo golaha deegaanka ee hadda isla markaasina ay ka fiirsadaan cidda ay ku bedeleen cidda ay soo xulanayaan injineerka waraysi gaarsiin iyo telefishinka Horyaal ayaa waxa uu sheegay in magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland u muuqato mid god gashay isla markaasina loo baahan yahay in godkaasi laga soo saaro caasimadda ay sidaan u sheegay madaxdii oo dhammi joogto xaaladeedu ma fiicna waa caasimad muxuu ahaa laga seexday waxa weeyaan kolkaad eegto danahii guud ee wax loogu qaban lahaa iskuullada iyo danaha guud laga dhisi lahaa waa la lunsaday oo dana guud oo imika fayoobi muxuu ahaa ma jiraan kolkaad hoose si yar dhaadhacdo waa caasimad aan traffic light qura lahayn bas traffic istaba joogo inuu kolkii ma garanaysaa ilaahay inuu kala siiyo uu socdo laakiin waxaan traffic light oo kala hora ma jiro waxa kale oo lahayn house number ma laha street name ma laha and roads hagaagsan oo la maro oo muxuu ahaa ka madaxtooyada hormara unbaa wax laga shaqeeyo la hagaagsan oo gaadhigu uu socon karo si aan u socon karo unbaa jira drainage system ma laha town plan ma laha playgrounds ma laha oo carruurta yaryar ee meel wax looga dhigo iskuulladii kulka lix ila dhammaysta wixii looga dhisi lahaa wax carruurta yaryar wax la xiyaashanta aroortii waayo meel iskuul u dhow oo reerku ka soo gaargaari karo hooyadood ma jiro يعني dhibaato weyn oo caynkaasa ayaa jirta waxaad arkaysaa dariiqada qaarkood carruurtii oo kubad ku ciyaaraysa waayo playgrounds baan muxuu ahaa ayaan jirin ama ku filan baa jirin kolka wax weeyaan intaas oo dhibaato ah ayaa ka jirta muxuu ahaa magaaladii waxa igu maqaalo ah meeyarkii intaasoo dhibaato geystay ee xukuumadihii 7 sanadood uu madaxweynihii hore ee maxamed axmed siiraayo wax ka qaban waayay ee 3 sanadood ee muuse ka aamusnaa ayaa haddana la yiri waa nominated kolka reerkii oo soo doorta reerkii un baa ceebtii lagu wadaa yani ninkii sidan wax u galay un baa reerkii soo dooranaya taasina reerka ma qabato waxa sababta keenay waa nidaam xumada iyo waxaan loo helayn waxa lagu waayayo dad hawshan ku filan oo qabto oo hagaagsan Saciid Faarax Aqjar wararka Horyaal TV